Bismillahirrahmanirrahim. Arday, welcome with Open Hand and Frank Face. Haddii la qadaray insha Allah waxaan bilaabi doonaa buugeeni form 4ka qaybtiisii grammarkan bilaabi doonaa cutubka koobaad ayaa baynu ka bilaabi doonaa haddii la qadaray insha Allah unit 1 English grammar notes. Waxaan bilaabinaa English grammar notes. Okay, cutubka koowaad ee casharka grammarka ku dhiganna waxa loo yaqaanaa commonly confused words. Waxa la yiraahdaa commonly confused words. Ayaa loo yaqaanaa cutubka koowaad casharkan ku dhiganayna. Marka waxaan dhiganaynaa 8 eray oo laba u wada socda. Labada eray oo horeeyeen dhiganaynaa wax weeyaan waa to iyo to. Labada ku xigaana waxay noqon doonaan then iyo then. Labada ku xigaana waxay noqon doonaan your iyo your. Labada u dambeeyana waxay noqon doonaan it is iyo it is. Erayadan aynu dhiganayno waxa la isku dhahdaa ama loo yaqaanaaba magacooda kale homophones. Waxa la homophones. Homophones waxa weeyaan laba erayo kasto aynu qornay dhawaqana way ka sameeyeen qoraalkii macnaheedu ay ku kala duwanaanayaan. Imka labada oo horeeyo kale to iyo to qoraalkii isku mid ma wayna aragnaa laakiin marka lagu dhawaaqay isku si waa lagu dhawaaqaya then your it is dhawaqii way ka sameeyeen laakiin qoraalkii way ku kala duwan marka erayada noocana ee dhawaqana ka siman qoraalkii macnaheedu ku kala duwan ba homophones leeyahay. Marka homophoneska markaan qeexayno waxaan ku qeexaynaa homophonesku are words waa kelmadaha that have leh waxay leeyihiin same pronunciation dhawaq isku mid ah bay leeyihiin waxay leeyihiin same pronunciation dhawaq isku mid ah different writing sidoo kale waxay leeyihiin qoraal kala duwan different writing and different meaning macna kala duwanna way leeyihiin and different meaning. Marka erayada dhawaqa ka siman ee isku dhawaqa different writing ee qoraalka ku kala duwan different meaning ee macnahana ku kala duwan baa wax loo yaqaan homophones. Okay, waxaan soo qaadanaynaa labada u horeeya inuu ka bilaabaynaa ta koobaad waa to qoraalkeedu waa to waxaynu barbar dhigaynaa to oo iyaduna to loo akhrinayo. Labada eray markaad akhrinayso isku si baad ugu dhawaaqaysaa laakiin writing-kii bay ku kala duwan yihiin tan hore waa to tan dambena waa to meaning-kana way ku kala duwanaanayaan. Tan hore haddaynu soo qaadano to iyadu waxa weeyaan tan waa preposition waa meeleeye preposition halkay tani ka tahay iyadu adverb ay falkaab ka tahay tani waa preposition tanina waa adverb waa falkaab. Okay, tan aynu nimaadno to is either a preposition waa meeleeye laba meelood baanay jumlada ka gashaa. Number 1 waxaa la dhigi karaa before a noun magac ka hor baa la dhigi karaa. Haddii magac laga horreysiiyana shows as direction waxaa loo isticmaalaa oo ay noo tilmaamtaa jiho. Marna waxaa la dhigayaa before a verb ficilkaa laga horreysiinayaa marka verbka laga horreysiiyana waa part of infinitive qayb ka mid ah infinitive-ka weeyaan part of infinitive. Okay, in ku yara noqono waxaynu nidhi to iyo to labadan eray qoraalka way ku kala duwan yihiin macnahana way ku kala duwanaanayaan. Toodan hore waa preposition oo waa meeleeye waxaana la dhigaa laba meelood bay jumlada ka gashaa mar magaca laga horreysiinayaa markay magaca ka horeynayso shows as direction waxay noo tilmaamaysaa jiho marna verbka laga horreysiinayaa waa qayb ka mid ah infinitive-ka. Tusaale ahaan sidan oo kale baynu qoraynaa waxaan odhanayaa
dan tusaale qoro waxaan qoraynaa sidan oo kale imka waxaad igu tiri where are you going deetana waxaan kugu jawaabaan ku uri I am going to school schoolkii baan tegaya tooda imika halkaa taallaa waxayna tusaysaa direction sababtoo ah school oonuna bay ka horeysaa marka to is either a preposition or shows as direction or part of infinitive aniga nidhi toodu magaca laga horreysiinaya marka magaca laga horreysiinayna waxay noo tilmaamaysaa direction oo magac bay raacaysaa sida imika to school oo kale marna waa qayb ka mid ah infinitive-keena oo verb-ka laga horreysiinaya tusaale ahaan saas oo kale waxaan raacnaa we are tired waanu daalanahay soo sidaa awgeed we need waxaan u baahannahay to sleep inaanu iska seexano ayaan u baahannahay imika tan labaad wax weeyaan to sleep toodan imika waxay taallaa before a verb sleep oo verb way ka horeysaa waa qayb ka mid ah infinitive-ka markaa markayn leenahay direction baa marna infinitive direction kuwa markay magaca raacaysa sida to school oo kale infinitive-kuna waa markay verb present raacdo sida to sleep oo kale okay taa waan isla fahnaan malaynayaa way toodii kale ku noqonaynaa toodan kale iyadu waa verb waa falkaab waa verb waana verb of degree iyadoo haddaba tani laba macno ay leedahay labada macno ay leedahay mid ka mid ah waxaa loo yaqaanaa waa very more than needed waxa weeyaan very more than needed waa wixii aad u baahnayd wax ka badan very more than needed ayaa la yidhaha wixii aad u baahnayd wax ka badan bay noqonaysaa marna waa also macnaheeda labaad wuxuu noqonayaa also waa sidoo kale weeyaan marka leenahay very more than needed macnaheedu wuxuu noqonayaa aad waa wax saayida ama wixii loo baahnaa wax ka badan marka leenahay also naf Soomaali wuxuu noqonayaa sidoo kale iyaduna laba meelood bay gelaysaayo waxa la dhigayaa before an adjective sifadaad ka horreysiinaysaa before an adjective meesha haddii uu adjective yaallo tu'dan adverb-ka baa gelaysa dhammaadka jumladana isla tan baa la gelinayaa oo marka dhammaadka jumladda la geliyo also bay noqonaysaa tusaale haddayn soo qaadano waxaan odhanaynaa sidan oo kale waxaan odhanaynaa imika you like waxaad jeceshahay to learn inaad barato sorry waxaan odhanaynaa these shoes kabahani are too expensive aad bay qaali u yihiin imika markaan saa leenahay tuuda halkaa aynu dhignay macnaheedu waxa weeyaan very more than needed oo qarashkii loo baahnaa mid ka badan oo weliba aad uga badan baa la siinaya markaad leedahay too expensive macnaheedu waxa weeyaan aad bay qaali u yihiin marka ereyga to aad ahaan baa imika loo isticmaalayaa expensive oo adjective-na uu ka horeeya way mar labaadka waynaga nidhi also baa loo isticmaalaayo imika waxaan odhanayaa tusaalan oo kale I am hungry too qof baa ku yidhi waan gaajoonaya deetana adna waxaad ku tiri I am hungry too anna sidoo kale waan gaajoonaya imika toodani aad maaha waa also anna sidoo kale bay ugu jirtaa marka ereyga to iyo to saas buu ku dhan yahay haddii meesha uu noun yaallo ama uu verb yaallo to the preposition-ka baad isticmaalaysaa haddii uu adjective yaallo ama dhammaadka jumladdu ay bannaan tahayna tooda adverb-ka baa la isticmaalaya I hope inaad fahantii baan ku rajo weynahay labada inoogu xigaynu gelaynaa oo noqonaya then iyo then ayaa inoogu xiga labada erey inoogu xiga waa kuwan iyaguna sidii si leeg dhawaqa way ka simayin laakiin qoraalkii macni bay ku kala duwanaanayaan tan hore aynu bilowno then marka ugu horeysa waa conjunction oo waa xidhiidhiye waxa weeyaan conjunction waxa weeyaan waa xidhiidhiye laba macnaana ay leedahay labada macno ay leedahay waxa weeyaan mar waa after that mar waxa weeyaan after that macnaheeda labaadna waxa weeyaan next after that oo next ayaa loo isticmaalaya marka leenahay after that waa dabadeedna nextina waa maxaa ku xiga maxaana loogu talagalay inay isku xidho two sentences or more laba jumladood iyo wax ka badan baa loogu talagalay inay isku xidho tusaale waxaan soo qaadanaynaa sidan oo kale waxaan ku oranayaa read akhri read the story
akhri sheekada then dabadeedna answer ka jawaab the question su'aalaha ka jawaab imika jumlada aynu qornay qaybteena hore iyo qaybteena dambe ereyga xidhiidhinaya waa then waxaanay meesha ugu jirtaa after that waayo waxaan ku akhri sheekada dabadeedna ka jawaab su'aalaha marka read the story then dabadeedna imka after that answer ka jawaab the question su'aalaha nextina waa loo isticmaali karaa oo imka tusaale kale waxaan qornay what's your contact number tan waxaad igu tiri my contact number is number kale igala soo xiriira waa 063 tan inta markaad ii sheegtay then baan qoranaya then waxaan jeedaa maxaa ku xigay inta adna numberkii baad sii wadaysaa way then tan kale aynu isla eegno then tan kale iyaduna sidoo kale waa conjunction iyaduna sidoo kale waa conjunction oo xiriiriye haddaba tan iyada maxaa loo isticmaalaa is used waxa loo isticmaalayaa to join inay isku xidho two parties of comparison waxaa loogu talagalay tii hore halkay ka eedaaf dardaad oo next tan iyada waxaa loogu talagalay inay isku xidho laba qaybood oo isbarbardhiga comparison baa loogu talagalay comparison kuna wada comparison maahe haddii jumladaada qaybta hore iyo ta dambe la isbarbardhigayo isbarbardhignoodaan dantaynu isticmaalina waa taa eeda wadata haddii aanay isbarbardhig ahayn oo laba jumladood oo kale la isku darayo ama la isku xidhiidhinayana waxaan isticmaalinaa taaftardaad oo negatiga tan aan leenahay comparisonna macnaheedu maaha comparison oo dhan baa lagu xidhiidhinaya ma noqonayso comparisonku wuxuu u qaybsamaa saddex nooc ayuu u qaybsamaa nooc ka mid ah comparisonka waxaa loo yaqaanaa simple degree waa darajada koowaad ee wax la isku barbardhigo ayaa la yidhaahdaa simple degree darajada labaad ee wax la isku barbardhigana waxaa la yidhaahdaa comparative degree ayaa la yidhaahdaa darajada labaad ee wax la isku barbardhigo way darajada saddexaad waxaa la yidhaahdaa superlative degree waxaa loo yaqaanaa superlative degree saddexdaa noocba marka wax la isbarbardhigaya la isticmaalaa haddaba simple degree isagu laba u qaybsamaa positive iyo negative positive iyo negativekiisa waxaa xidhiidhiyo ereygaas oo waxaan onayaa tusaalaan oo kale Abdi is as old as his father ama waxaan onayaa Ali is as clever as Umar labadaa qof markaa waa similar oo ka simeyn bay noqonaysaa way comparative degree inoo yimiday waa kaynu dan leenahay ereygan baa isaga lagu xidhiidhinaya then comparative degree waxa loo isticmaalaa marka la isbarbardhigayo laba qof laba shay laba xayawaan oo kala duwan haddii waxa la isbarbardhigaya ay laba kala duwan noqdaan ereyga then baynu ku xidhiidhinaynaa comparative degree waa la isticmaalaya superlative degree isagu xidhiidhiyo male laakiin article-ka da ayaa la isticmaalaa okay tusaaleyna daba soo qaadanaynaa kan marka in leenahay isbarbardhig sidan baan odhanayaa tusaale ahaan waxaan odhanayaa Ahmed is older than Afnan. Ahmed uu ka weyn yahay Afnan. Halkan imika waxaan sameynaynaa waa two parts of comparison oo Ahmed iyo Afnan baynu isbarbardhigaynaa. Waxaynu sheegaynaa inay kala weyn yihiin. Comparisonkiin markaa sheegaynaa waa older ereyga danna inaga ku xidhiidhinay oo isticmaalay. I hope you have just understood. You students, today we are going to study at the third section